caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Xadi ayaa maanta tababar looga hadlayay u furay sidii dadka looga badbaadin lahaa irbadaha dadka lagu mudo iyo qalabka caafimaadka ee loo adeegsado ee lagu daadiyo goobaha xashiishku ka buuxo. Tababarkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah waxa ka qayb galay 60 ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Boorama. Tababarkan fulintiisana waxa iska kaashaday caafimaadka gobolka Awdal iyo hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka. Tababarkan waxa si qoto dheer looga hadli doonaa sidii bulshada ku nool gobolka Awdal looga badbaadin lahaa qalabka lagu isticmaalo goobaha isbitaalada, MCH-yada, goobaha shaybaadhka iyo farmasiyada sida irbadaha ee lagu daadiyo meelaha aan ku habboonayn. Waxa furitaankiisii tababarkaasi ka hadlay madaxa WHO Siciid Bile Buraale waxaana uu sheegay inay habboon tahay in taxaddir dheeraad ah laga yeesho qalabka wax lagu mudo lagu daadiyo goobaha xashiishku yaalo si aanay dhibaato ugu abuurin bulshada. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Boorama Dr. Ismaaciil Maxamed Aya waxaana uu xusay in shaqaalaha isbitaalka dadaal u galaan in alaabta waararka lagu isticmaalo la geeyo goobaha lagu gubo. especially lagu talagalay shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan isbitaalka Boorama oo xudunta caafimaadka gobolka. Injection safety-gaasi ama shaqada noqoto ama waxyaabaha kale medical waste-ka waxa noqotay waxyaabaha ugu muhiimsan qaabka loo ilaalinayo ama qofka shaqaalaha iska ilaalinayo ama qofka dhibaatada in meelaha lagu tuuro loo ilaaliyo dadka kale loo ilaalinayo waxyaabaha ugu muhiimsan bay kamid tahay asaaska shaqada caafimaadka kamid tahay. isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Xadi oo ka hadlayay furitaanka kulankaasi ayaa ku dheeraaday ahmiyadda tababarkan uu leeyahay shaqaalaha caafimaadka waxaana uu kula dardaarmay inay bulshada ka ilaaliyaan waxyaabaha ay u keeni karaan agabka loo adeegsado marka dadka lagu daweynayo isla markaasina foojignaan dheeraad ah laga yeesho. Dr. Cabdiraxmaan waxa kale oo kula dardaarmay ka qaybgalayaasha waxyaabaha ay tababarkan ka korodhsadaan u gudbiyaan shaqaalaha kale ee aan ka qaybgalin. هذا كان responsible markii aad furtay waan qori lama iyo baalkaasi meel habboon la dhigayo ama lagu dhisayo gareenayo qofka caafimaadka ayaa ka mas'uul ka ah inaynu hadalno ayna ku camal fadhiino mufti effect tano waan ka maqlaa tano waan ka saarnaa mooyaniga mufti effect marka iyaga sheekadu noqonayno maqal oo ku dhaqanayeen inaga noqonayeen. tababarkan noocan ah waxa uu ka qayb noqonayaa ka badbaadinta bulshada irbadaha wax lagu mudo inay dhibaato u keenin.